hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal Would you please stand for the Somali national anthem? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدن مدحوينه مدن يال مدحوينه يال هوري مدن رئيس الوزراء odayada talada waddanka qaybta ugu wanaagsan hayaa ee baarlamaanka labadiisa aqal iyo xubnihiisaba salaanta islaamka nagu salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa aan u nimidnay annaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadana maskax caafimaad qabta qalbi furan walaalaheenna Soomaaliya in aan u hambalyeeno in aan la qaybtanno farxadda iyo ciidda in aan la qaybtanno guusha ay gaadheen keentay shalay iyo maanta. shalayna laba madaxweyne ayaa isweydaarsaday, maantana labadii unbaa isku noqotay, labadii unbaa isweydaarsatay iyaga oo niyad sami ku jirto, walaalnimo ku jirto, dimuqraadiyaddu sheegayso, soomaalinimaduna ay sheegayso. taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheego. Soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeega oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan. falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeenu leeyahay. waxa aan loo naaloonayaana inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaaftooma, gacantiina isku maamula, khayraadkiina la soo baxa, kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uun inaanan la noqon. taasina halgan dheer bay doonaysaa, is-aaminaad bay doonaysaa, isku kalsooni bay doonaysaa. walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasti oo ay fursadi jirto, oo dalkuna marka uu ku yeedho waan soo joogaa gebigiinaba in laynaga maqlo ay waajib idin saaran wey. madaxweynaha waan u hambalyeynay, waan hambalyeynaynaa, waan hambalyeyn doonaa, laakiin
haddii dadka soomaaliyeed uu iswada garab taagona tallaabadiisii 10 jeer buu ayuu sii kordhini doonaa waxaan hubaa isaga oo khibraddii loo baahnaa leh isaga oo soo maray maxaan ku dhahdaa xukunku waxa uu yahay isaga oo garanaya dadku inta uu isku jiro isaga oo garanaya waxa soo socda sida uu u maamuli doono sida uu u maarayni doono sida uu turxaanta uga saari doono sida uu uga bayri doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan annagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan hayno kalgacal ku hayno waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar iyo ummadda soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno mar kale hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullah madaxda iyo wakiilada aan walaalaha nahay iyo saaxiibada aan nahay ee ka soo qayb galay munaasabadda madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaareyaashii hore ee dalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marti sharafta kala duwan ee timida meesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahad oo dhan waxaad u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay uga soo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya dhowr iyo 60 sano ee Soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hannaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo 22 sano ee ciidamadu ay talada hayeen dhaqankaas waa mid ay ku faani karto ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay mudanayaal marweyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Djibouti madaxda iyo shacabka reer Djibouti mahadiha ka gaartay dalkeena xumaanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxaana dhabahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Somaliland waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadida wada hadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeena Soomaaliyeed inay helaan xaq muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga
waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada hadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. qodobka saddexaad, xasillooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono. 4, taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada. 5, taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanaasul. taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga. dhismaha garsoor hufan, madax bannaan, isla markaana haqabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeena Soomaaliyeed ay qabaan. cadaaladdu waa udub-dhaxaadka heshiis Soomaali heshiis ah. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah, waxaa kale oo hiraalkeena siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. himilooyinka dowladnimada ay tigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. 1, inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga, si gaar ah dalalka geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadino shacabkeenna. 2, inaan wanaajinno isla markaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka deriska ah, kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibada aan nahay intaba. in ka badan 2 milyan oo muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida, kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin. 3, xiriirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale. dadka Soomaaliyeed waa kuwo lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka, ayagoo dalal badan oo Afrika, bariga dhexe iyo weliba galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaax la ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin. si gaar ah waxaan yoolkeenna ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhexeeya dalalka guud ahaan, gaar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahaaneed ee geeska Afrika. waxaa iyana mabda aasaasi ah noo noqon doona siyaasad arrimadeed oo dhexdhexaada, isla markaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira. Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeenna iyo mid ahaanshaha geyigeenna. mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, intaas inkasta oo dalkeenna sameeyey
horumar ballaaran haddana waxaa weli taagan caqabado aad u ballaaran oo u baahan inaan iska kaashanno sidaa la socotaan waxaa haatan gobolka geeska afrika ka jira abaaro ba'an oo halis ku haya 100 milyan oo qof soomaaliyana waxay u nugushahay abaartaas iyadoo lagaba cabsi qabo in meelaha qaar ay macaluul ku dhufato abaaraha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda sanad walba waxaad moodaa inaan u dhaxayno 6 bilood oo biyo dhaamin ah iyo 6 bilood oo aan la tacaalayno fatahaad ka dhalatay roobab zaa'ida iyo webiyada oo biyo zaa'ida wado waxaan arrimahaas sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday sida isbeddelka cimilada burburka kaabayaasha dhaqaale iyo nuglaanta hay-adaheenna dowladnimo sidaas daraaddeed dowladdaydu waxay dhisi doontaa xukuumad u xil saaran arrimaha bay-ada marka laga eego dhibaatooyinkaas waxaa lagama maarmaan ah inaan iska kaashano dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxaa lama huraan ah inaan dhidibada u aasno nidaamyo xoojin kara hay-adaheenna gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah sidaas daraaddeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh marka laga yimaado la tacaalidda masiibooyinka waxaa sidoo kale himilooyinkeenna horseed u ah kobcinta dhaqaalaha dalkeenna howlaha hortabyada leh ee aan abbaari doonno waxaa ka mid ah inaan barnaamijka deyn cafinta ee haatan maraya bardhexaadka loo yaqaano decision point aan gaarsiino bartilmaameedkiisa ah completion point sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqayno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta africa bangiga horumarinta islaamka iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha lacagta deynta ah soomaaliya ku leh waxaa kaloo qayb weyn ka noqon doonta taabagelinta barnaamijka deyn cafinta inaan adkayno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeenna hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeenna alla ku manaystay khayraadka mudanayaal marwooyin madaxda sharafta leh dowladdayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yiraa waxqabad waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka soomaaliyeed waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhoweeya mustaqbalka shacabka soomaaliyeed ay hiigsanayaan muddo aanay mudan yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa mahadcelin ballaaran oo aan mar kale u jeedinaya shacabka soomaaliyeed oo wakiiladooda ay mar kale isaareen mas-uuliyadda sare ee dalkeenna yididiilada ay shacabka soomaaliyeed
u qabaan dowlad ka tarjumaysa himlooyinkooda waa mid aan har iyo habeen ku shaqayn doono anigoo kaashanaya taageerada shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan. isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo xuquuq dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin. saaxiibada Soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeenna ee ku salaysan Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah. waxaan ku soo gunaanadayaa aan cambaaraynaynaa ugu dambeyntii xalay dadkii Soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgood. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka caalamka ee Soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnaay 32 sano aan soo dhaafnay. dalkeennu waa dhaqaaqay waa socdaa in yar baa inoo dhiman waan ka baxaynaa. waxaan sii codsanaynaa in ay dadka Soomaaliyeed isku duubnaadaan isu tagaan isu tanaasulaan dhammaanteedna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqayno berri si aan u xaqiijino Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Please let us respect the order. We still have presents. Akudalin chedal